wuxuu waa dilka qofkiiba la iska dilo uu wax loo dilay la garan maayo xaymanka wadankeena ku soo batay maalmahan intaan usbuucana nila joogo waxaan maqlayaa hebel baa toori lagu dilay kaaba toori lagu dilay war muslim sidee dhigiisa loo daadiyaa xaq darro loogu daadiyaa ninkii nin xaq darro ku dilay isagoo tunka ku suto banka qiyaama iman baa la yiri marka buu leeyahay yaa rabbi bal wuxuu ii dilay weydii ma kala arkayna xaq iyo baadilkii xaqiiqadii ma fahmayno markaas boorku markuu ka faydmo ayaad kala ogaan doontaa waxa hoostaada jooga ma faras waa soo dameer waa min calaamaati saaca zamanku xilliyadaas ku soo dhawaan buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam jahliga badan buu nabigu yiri cilmiga ayaa yaraan buu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam ويكثر الحرج حرج كان النبي قال لي نو معناه wuxuu waa dilka qofkiiba la iska dilo uu wax loo dilay la garan maayo waxa imika wadankeena ku soo batay maalmahan intaan usbuucana nila joogo waxaan maqlayaa hebel baa toori lagu dilay kaaba toori lagu dilay war muslim sidee dhigiisa loo daadiyaa xaq darro loogu daadiyaa la zawalu dunya ahwanu ala allah min ihraq dam muslim buu nabigu adduunka dhan oo meesha ka baxa oo gabigiisaba la baabiyo la duuba buu nabigu yiri ayaa ilaahtiisa kala fudud nin muslim oo dhigiisa xaq darro lagu daadiyo hal loo dilo muslim muslimka dhigiisu waa qaali dagaal baa la galay jihaad nin baa gaalada dhinacooga dhufays ku dhacay nin ansaari waree madiina ku qabta seeftii markaasuu ninkii seefta lagu qabtay baa yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah markaa halkan uu islaameen uu ka jeestay kolkuu ka jeestay buu ka daba tago boqnuhu gooyey haddana dhufayskiibuu ku dhacay markaasuu nin kaloo ansaariya ku qabtay seeftii kiina wuxuu ihi waan ashahada laa ilaaha ila allah muxamed koluu ka jeestay kiina qorta ka gooyey usaamata binu zayd oo nabi maxamed sal alla alay wasalam uu saxaabadiisa ugu jeclaa ayaa eegayay aayaratuu soo socday buu seeftay ku qabtay uu ashahaatay kaama dhegaysanay buu qortu ka gooyey waasaad yeel lahayd soo ma dagaalkii markuu dhammaadaa warbixintii baa nabiga loo celiyay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah usaama binu zayd nin ashahaatay buu qudha ka jaray markaasuu nabigu wejigiisii bedelmay usaama me u yeedha usaama aqataltahu bacdama an qaala laa ilaaha ila allah ya usaama yaa rasuul allah ma markuu ashahaatay uu kelmaddaa yidhi kadib miyaa dishay buu ka yidhi hayo uu ku magan galayay buu yidhi ashaqaqta qalbahu qalbigiisa ma dilaacayso ma ogaatay inuu ku magan geliyay inay dhab ka tahay ma kala ogaatay waa maya markaabuu yaa rasuul allah markaabuu nabigu sara kacay nabigu markuu wax diido waa la garan jiray moogta usaama binu zayd baa yaa rasuul allah ilaahay dambi dhaaf ii weydii ilaahay dambi dhaaf ii weydii markaabuu qiyaamaha halkeed geli doontaa buu ka yidhi usaamow markuu ninkaasi banka qiyaamo kelmadda uu la yimaado halkeed geli doontaa qiyaamaha banka qiyaamo kelmadda isagoo wata markuu yimaado kelmaddan kalimatu taqwa kalimatu tawxiid curwatu lwusqa la infisaama lahaa waa kelmadda ilaahay nebiyada u soo diray waa kelmadda qur-aanka iyo kutubu samaawiya ajligeed loo soo dejiye lagu sharxay waa kelmadda nebi maxamed calayhi salatu wasalaam dhiiggiisa isaga ayada darteed dhulka loogu daadiyey waa kelmadda nebi zakariya calayhi salaam iyo nebi yaxya kurka looga gooyey kelmaddani kelmad sahlam ah seed ku xalaashan nin muslim oo walaalkay ashahaadanaya dhiiggiisa ana qabiil baad u dishay waa banka qiyaame halkan ugu kala baxaya waa ilaahay hortiisa ogow ninkii nin xaq darro ku dilay isagoo tunka ku suto banka qiyaama iman baa la yidhi markaa buu leeyahay yaa rabbi bal wuxuu ii dilay weydii waa ka ninkan aniga aan ku baxay isagaa sababa adduunkana ka soo baxee
الوحو يدلي ويدي خصمان بو نبي يقول والله بدا ugu horeysa maxkamadda ilaahay la taagayo xagga bini aadanka dhiigooga kii xaq daran lagu dilay kii dilay buu saaraya wa min calaamaat as-saaha dilka iska bata dil ma la yaani oo qofka la iska dilo marka aan ka foojignaano ilaahay inuu soo uga toobad keeno oo dadkeenana anu nasteexayno helaano war ilaahay ka baq taqi allah ya ayuha almuslim ومن علامات الساعة farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 afargees Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo hadaba macaamil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka qiimaha cusub halka doolar waxaad ku helaysaa internet iyo ku hadal maalinle ah oo aan xadidnayn waxa kale oo shirkaddu qiimo dhimis ballaaran oo 40% kugu samaysay internetka toddobaadlaha hadda waxaad ku helaysaa $3 oo kaliya si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn ee maalinlaha toddobaadlaha waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay